سماها روحي حوين نعبوها يستاهي نبقى معها روحي هبلها نبارك يستاهي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان يقدر ونسينا وناقة قوسك على وربرتين برنامج حدين سجليا برنامج كعوض هنا كمية فيديو شلق بسد برها بلشيدة تاس أو ويل لان يرى وقرا عيو لو قبل اسكولي عن حسين ناس كيفو شقيه warbixintaasi waxaa noo soo dariyay wariyaheen Xasan Biiwaay oo ka soo hadlaya dhankaas magaalada Muqdisho. muuqaal argagax leh ee lagu faafiyay baraha bulshada oo deegaanada Soomaaliland ka dhacay ayaa ahaa sida tan wiil ayaa garaacaya wiil kalena kaamarada ayuu ka duubaya gabdho Soomaaliyeed oo iskuul ka soo baxay. dhacdadan ayaa waxay ka dhacday deegaanka lagu magacaabo Gabiley ee gobolkaasi Gabiley magaaladiisa Gabiley iyadoo wiil ka mid ah dhalinyarada oo daadiisa lagu qiyaasay 17 uu garaacayo laba gabdhood oo iskuulka la dhigto asaga wiilkaasi. wiilka ayaa markii hore garaacaya mid ka mid ah gabdhaha markii iskuulka banaanka laga soo baxay ayadoo kaamirada uu hayo mid saaxiibkiisa oo dhahaya war garaac. dhanka kale wiilka ayaa mar labaad garaacaya gabar kale iyadoo gabadha kale ay isku dayday in iska caabiso laakiin cabsi darteed ay ka aamustay ushan oo ku sii waday. lama garanayo waxa uu geystay garaacaasi wiilkaasi laakiin waxa loo maleynayaa inuu ku garaacayay sun. wiilkan oo u muuqday mid aan argagaxin ama wax naxdina ku jirin wax xushmadana u heenin gabdhahaasi yaryarka ee kana daadooda lagu qiyaasay 13 sano jir oo ay iskuulka isla dhigteen. dhacdadan oo ahayd dhacdo naxdin leh oo gabdhahaasi inkastoo dhaawac weyn uu soo gaarin uu ku garaacay sunka asagoo uu muujiyay xushmad darro iyo akhlaaq xumo meeshii ugu xumeed. warka kale farxad leh ayaa ah in ciidanka Soomaaliland ay xabsiga u taxaabeen wiilka ka soo muuqday kaamarada iyadoo haatan lagu daba joogo midkii kaamarada duubayay. waalidiinta dhalay gabdhahaasi ayaa soo dhaweeyay sheekadaasi ay raadeen xabsiga loo taxaabay wiilka ficilka ku xun kula dhaqaaqay gabadhooda. dhanka kale waxa iyadana iskuulkii laga eriyay wiilkii wax garaacayay oo iskuulka maamulkooda waraaq ka soo baxday ku sheegeen in gabi ahaanba ay ka ruqseeyeen iskuulkaasi ama ay ka eriyeen wiilkii anshaxumo ahaa kula dhaqmay gabdhaha reer Soomaaliland. raggu waxay ka wada siman yihiin magta iyo muuqa laakiin aqliga iyo garaadka kama wada simna. inta badan ragga Soomaaliyeed waa ay xushmeeyaan haweenka gaar ahaan kuwa u dhowba iyo kuwa ka fogba laakiin muuqaalkaasi ayaa ahaa mid uu muuqday muuqaal anshax darro ah asagoo wiilkaasi ula dhaqmayay gabdhahaasi sidii wiilal ficiis ah. laakiin waxa uu moogyahay in gabdhahaasi ay la dhasheen wiilal kale ama waxa uu moogyahay haddii ay sanad la xitaa inay gabdhahaasi leeyihiin dad Soomaaliyeed ama reer Soomaaliland ah oo difaaci doona. dowladda Soomaaliland iyo dhammaan shacabkii ka dhidhiyaba aad iyo aad ayaa ugu mahadcelinaynaa tilaabtaas wanaagsan ee dowladda ama ciidanka booliska Soomaaliland ay ka qaadeen. maaha markii uu horeysay nin raga uu meel fagaaraha ku dilo gabdho Soomaaliyeed. dhacdooyinkan oo badan ayaa dhowr mar ka dhacay deegaanada Soomaalida iyadoo mararka qaar gabdhaha loo geystaba kufsi aan iyo jirdil ama dilba la iskugu daraba meelaha qaar ee dhulalka Soomaaliya. wariyaheen ka soo warmar dhankaas Muqdisho aad ayuu u mahadsan yahay wariye Xasan Biiwaay. halka naga daawanaysiin waa wanaaga qoyska bal naga daawada fiidiyowgii iyo wixii ay dhahayeen dhalinyarada. مع الوسع روحي حوين نعبوها يستاهي نبقى معها روحي هبلها نبارك يستاهي نعس وين يروح عن حسين ناس كيفو شقيه